ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya, madaxweynaha Puntland, madaxweynaha Galmudug, gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed, taliyayaasha ciidanka, golayaasha heer federaal iyo heer dowladaha xubnaha ka ah labada golobo, senatarada, saraakiisha ciidamada, marti sharaftan meelaha kala duwan oo Soomaaliya daafaheeda ah ka timid, noocyadeeda kala duwan isugu jirta, mas'uuliyiinta ah, fanaaniintii inta wacdaraha ka dhigtay, kooxaha kala duwan ahayd, saxaafadda, cid kastoo munaasabadan ka soo qayb gashay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda salaan, waxaan rabaa marka hore inaan u mahadceliyo mas-uuliyiintii nagala soo qayb gashay munaasabadan 3 sano guuradii maalintii doorashadii madaxweynaha Koonfur Galbeed la ii doortay, iyadoo lagu jiro xilli adag, sida aad ku soo ajiibteen oo aad nagala soo qayb gasheen aad iyo ugu mahadsantihiin. cid kasta oo noo timid oo nagala soo qayb gasheen oo uga mahadcelinaynaa. intaas kadib runtii waxay ahayd maalin qurux badan, waxay ahayd maalin xasuus leh, waxay ahayd maalin taariikh leh, waxay ahayd maalin Koonfur Galbeed madaxweyne ay ku kalsoon tahay loo doortay, annagana aan ilaahay hortiisa aan u go'aansannay, waxna aanan hagranin, si daacadnimo ah oo kalsooni ku jirto, annaga oo shacabkaannaga iyo maamul iyo mas-uuliyiin intaba aan garab taagan yihiin, aan u istaagnay meeshii ay Koonfur Galbeed joogtay in horey looga socdo oo tilaabo horle la qaado. ilaahay waa nagu guuleeyey. sanadkii 3aadaan maraynaa. waxyaalo muhiim ah oo la taaban karo yaa noo qabsoomay. waxaana hiigsanaynaa sidii hore loo sheegay waxyaalo kaloo dhiman oo kasii muhiimsan inaan sii qabanno hadduu ilaahay yidhaaho, aana uga tagno Koonfur Galbeed legacy iyo sharaf iyo horumar iyo taariikh laga sheekeeyo oo la yidhaaho maalintii uu madaxweyne Cabdicasiis joogay yaa intaan la qabtay. intaas ayadoon qabannayna waxay noogu qabsoomeen midnimada iyo wadajirka shacabka reer Koonfur Galbeed meel walba ay joogaan ay u taagnaayeen inay deegaankooda iyo dalkooda ay horumariyaan, dowladdoodana ay garab istaagaan ay la shaqeeyaan. intaasay noogu qabsantay. waxqabadka annaga markii aan si guud u qiimaynay waxaan ku soo aruurinay 4 tiir. 4taas tiir oo kale ah amniga iyo cadaaladda. hal tiiru ka mid u ahaa markaan amniga u howlgalnay aan aragnay deegaanada Koonfur Galbeed culayska ugu badan oo maanta haysto iyo dayaca ka jiro deegaanka Koonfur Galbeed inuu yahay amnigaas oo uu saameeyey nimanka nabadiidka ah, ay noqotay xaruntii laga soo aas-aasay, ukumahooda yaallaan, ay ku dhasheen, argagixisada caalamiga ay ku gabato, kuwa dembiyada caalamiga soo gala ay ku dhuuntaan, kuwii dhallinyaradaannada iyo carruurtaannada lagu abaabiyo. deegaanka oo ah deegaan ballaaran, barwaaqo ah, maxay ahaydee wax kasta oo bini aadan uu ku noolaan lahaa oo dhan yaallaan, dhul qurux badan oo buuraley iyo hawd balay lagu dhuuman karo, yaa waxay suurtagelisay inay noqoto xarunta ugu weyn ee shabaab uu ku dhasho inay noqoto. waxyaalaha keenay in dadka reer Koonfur Galbeed ay dayac iyo meel walba ay tagaan geeyey waa amni darro ee ma ahan dhaqaale xumo iyo deegaan xumo iyo nolol xumo maaha. deegaankii Soomaaliya ugu fiicnaa sidii la sheegay baa yaallo, beer baa yaallo, webi baa yaallo, xoolaa yaallo, bad baa taallo, laakiin intaba waxay ka suurtageli waayeen waa amni darradaas darteeda. markaan intaas aragnay waxaan u dhaqaaqnay si looga baxo in aan diyaarinno ciidamo stateka uu leeyahay oo degmo kastana loo suubiyo 300 bilow fiican say u noqoto oo ciidamada daraawiishta.
ciidan ilaa iyo 3,000 ah yaan maraynaa oo hadda ay xareysan yahay dufcaddii ugu dambeysay ee tababarka dhammaynaysay dufcad kalena aan hadda ka xareynay degmada Baraawe oo 300 oo daraawiisha qorshaha aan rabnana waxaa waaye magaalo kasta oo koonfur galbeed 18 degmo inaan u samayno 300 oo ciidanka daraawiishta markii laga reebo degmada Baydhabo aan ugu talagalnay 1,000 ciidan oo daraawiish oo hadda noo marayso 750 inaan samayno 600na ay qalin jabiyeen 150 hadda ay qalin jabin doonaan insha Allah ujeedadana ay tahay ciidankaas markii ay tababarkooda dhameystaan ciidan uu state-ka leeyahay oo u kaco inuu amniga state-ka uu ka shaqeeyo ayna isu furaan degmooyinka sida la sheegay koonfur galbeed degmooyinkooda diyaaradaha loo raacaa sida madaxweyne Saciid uu sheegay mushkiladii hadda waa ka baxnay bardaale diyaarad looma raaca waa la tagaa waa laga soo noqdaa jidka la maraa laakiin waajid iyo diinsoor iyo xudur iyo qansax dheer intaas diyaarada loo raaca ayagana waxaan u diyaar garoobeynay ka mid tahay insha Allah taala waxaan ilaahay ka rajaynaynaa shacab iyo dawladba anagoo gacmaha isaysano markii aan kaalmo caalami ah iyo kaalmo dawladda federaalka baan helno inaan ayadana ka bixi doono qorshaha ugu horeeyo oo hiigsanayna ka mid tahay in jidadka aan isu furno jidka ugu horeeyo la furaayana uu noqdo ninka maray aan noqdo haduu ilaahay yiraahdo insha Allah cadaaladda waa waxyaalaha muhiimka ah oo aan xoog saarnay ka mid tahay markaan imid waxaan u nimid cadaaladii oo meel kale loo cadaalad tagay maalin walbo oo inta la joogo la leeyahay 10 nin baa la dilay xabadaas dhacaysa maxay ahayd dhul hebel baa la isku haystaa iyo guri hebel baa la isku haystaa cadaalad darreena u dhacday markaasaan waxaan go'aansanay inaan hay'adii garsoorka aan dhisno guddiga adeega garsoorka aan samayno maxkamaddii sare aan samayno ilaa iyo meesha ugu hooseysa aan dhisno kama aan harin aan haddana u samayno xaquuq iyo budget iyo miisaaniyad iyo mishaar gooni ah ay qaataan nin kasta oo garsoorka ka mid ah ugu sarreeya gudoomiyaha maxkamadda sare ilaa iyo ninka ugu hooseeyo isbasiiliga markay bisha dhamaatay inay mishaar qaataan garsoorkiina sidii shalay uu ahaa maanta uusan ahayn uu shaqeynhayo dadka reer koonfur galbeedna ay ku kalsoon yihiin oo u cadaalad tagayaan maanta cadaaladda Soomaaliya naba si u yaqaana dhaliilo waa jiri karaan laakiin shalay meeshii la joogay maanta ma joogaan waxaa noo dhisan hay'adihii garsoorka oo dhammaystiran oo shaqadoodii wato una baahan kormeer iyo korjoogteyn wixii qalad ah ay galaan in laga saxaro horumarinta dhaqaalaha waxaan sameynay wax la yiraahdo wasaaradaha dhaqaalaha iyo hay'adda dhaqaalaha oo u koonfur galbeed waxaan u kuurgalnay oo waqti badan gelinay dakhliga koonfur galbeed soo galaayo iyo kharashka baxay waxaan aad iyo aad muddo badan 3 sano soo joognay ka shaqeynay in dakhliga kor loo qaado kharashkana sidaas oo kale asagana maadaama uu mishaaraadkii hay'adaha dhan ay bixinayaan uu la gaaro waxaan gaarsiinay dakhliga miisaaniyadda in 30 milyan la gaarsiiyo maanta koonfur galbeed cid kasta oo koonfur galbeed joogto shaqaale ah ama baarlamaan ama xildhibaan ama ciidan ama garsoor ama hay'adaha dhan dawladda inay hesho mishaarkii ay xaq u lahayd dakhligii dawladdana uu kor u kaco adeegii horumarinta dhaqaalahana meel fiican la gaarsiiyay haddana ay noo qorshaysan tahay inaan horey u sii soconno oo waxyaalahan hiigsanayno ay ka mid tahay horumarinta arrimaha bulshada waa muhiimadda koowaad oo aan hiigsanaynay in aan gaarsiino adeegyadii bulshada waxbarashadii caafimaadkii biyihii in deegaanada dhan kulli la gaarsiiyo sidii ay ahaayeenna kor uga qaadno waxaan xasuustaa sanadkii ugu horreysay markii 2019 yaa inta shir ku qabanay oo waxbarashada ah waxaan weydiinay wasiirkii waxbarashada markaas joogay
ardayda dugsiga sare ee koonfur galbeed ee dugsiga sare dhammaystay meeqa waa wuxuu nagu yidhi 2400 waa yaa ka qalin jabisay waa dareemi kartaan koonfur galbeed oo populationka soomaaliya ugu badan ay degan yihiin oo lagu qiyaasayo 4 milyan iyo wax ka badan haddana populationkaas 70% ay dhalinyaro yihiin 2400 qof inay waxbarasho ay ka qalin jabiso dugsi sare waxay u dhigantaa waxbarasho ma jirto markaasaan waxaan go'aansanay inaan ogaano maxaa sababay maxay waxbarashadii u hooseysaa maantana marxaladda aan marayno waxaan gaarnay ardayda sano dugsiyeedka waxbarashada inay 31,957 ay gaaraan ayna noqdaan ardada Soomaaliya ugu horeysa imtixaamaadka markii la qaaday gobolada Soomaaliya markii 10 ay noqdaan 10 ugu horeeyo oo dugsiga sare ka soo baxo inay 70% ay reer koonfur galbeed noqdaan arday waa heerarka waxbarashada aan kor u qaadnay markii aan research badan suubinay magaalo kasta aan tagnay aan weydiinay waxa iskoolada loo aadi laayay waxaan suurtagelinay in la helo iskool aan shuruud ku xirnayn oo lacag laga rabin ardayda ilaa ay dugsi hoose ilaa ay dugsi dhexe ilaa ay dugsi sare ay dhiganayaan lacag la'aan ay ku dhiganayaan macallimiintii intii joogtay yaan shan jibaarnay meel kasta iyo tuulo kasta iyo degmo kastana waxaan geynay macallimiin ku filan intaas waxaa dheer magaalo kasta oon tagno laga bilaabo ceel barde oon kormeerka ugu horreeyay tagay waxaa ugu tegey ilaa ay dugsi dhexe ay ardayda dhiganayeen waxayna fadhiyeen dhulka waxaan suurtagelinay ilaa ay dugsigii dhexe in loo diyaariyo loo nadiifiyo dugsi sarena la dhagax dhigo maanta ardaydii dugsiga dhexe markay dhammayso ama xamar aadaysa ama jigjigo aadaysa ama booydhabo soo aadaysa inay ceel barde iskoolkeedii dugsiga sare loo dhammaystiray ka dhiganayaan magaalo kasta oo koonfur galbeed oon tagnayna waxaa laga furay dugsi sare magaalo loo soo aadaya ma jirto horumarinta isbitaalada iyo caafimaadka horukaca lagu sameeyeyna waxaa ka mid a ilaa iyo waxaan hirgelinay isbitaallo iyo MCH-yadii hooyada iyo dhallaanka in magaalo kastaba 5 isbitaal iyo ilaa iyo 7 MCH aan ka samayno adeegyadii bulshadii sidaan u dardargelinay ka mid tahay sidaasoo kale nambarka caafimaadka shaqaalaha meesha uu maraayo magaalada baydhabo keliya yaa waxaan ka shaqaalaysiinay 1452 qof oo shaqaale caafimaad ah oo ka shaqaynaya isbitaalada iyo MCH-yada kala duwan ee dowladda oo u adeegaya bulshada koonfur galbeed mishaarkoodana qaato hay'ado kala duwan iyo dowlado kala duwanna ay gacan naga siiyeen inay mishaaroodkooda qaataan waxaan fulinay mashaariic tiro badan oo caafimaadka ah oo marwo caafimaad la yiraaho damal caafimaad la yiraaho mashaariicdaas oo ayagana laga faa'iiday shaqaaleyn iyo tababaro iyo xarumo kale oo cusub oo caafimaad intaas guulaha la gaaray ka mid tahay waxaa isla sanadkan noo suurtagalay 7 isbitaal iyo 15 MCH yaan sanadkan gudihiisa dhisnay caafimaadka horumarka aan ka gaarnay ka mid tahay mashaariicda la hirgeliyey oo isla sanadkan aan gaarnay baa waxaa ka mid ah dib u dhiskii jidadka magaalada xarunta kumeel gaarka isbitaalkii jidadkii waaweynaa oo kulligood bilowday ayagana guulaha la gaaray ka mid tahay mashaariicda biyooley oo 39,000 oo qoys ay ka faa'iideysanayso mashruuca baxnaano oo 26,000 oo qoys ay ka faa'iideysanayso hirgelinta 30 ceel biyood oo riig ah hirgelinta korontada cadceedda lagu sameeyo ah oo ayagana aan meelo badan ka suurtagelinay sidaasoo kale safaradii dibadda iyo u adeegidii ummadda koonfur galbeed iyo dadaaladii aan ugu jirnay ka faa'iideysiga nidaamka federaalka oo aan u baxnay meelaha badan waxaa ka mid ahaa safarkii dheeraa oo Kaduna State aan u tagnay ujeedka ugu badnaa aan u tagnay waxay ahayd inaan nidaamka federaalka Soomaaliya ay qaadatay kalsoonida iyo jacaylka aan u qabno federaal inaan ogaano dowladaha dariska iyo dowladaha adduunka oo federaalka nidaamka federaalka haysto inaan mid walbaba waaye aragnimo iyo aqoon iyo isweydaarsi aan ka helno si aan kor ugu qaadno nidaamka federalismka waxaa xaqiiqo ah oon ogaanay oon mar horena ka hadalnay
sida hadda nuurudiin uu sheegayay 100 sano ka hor awowayaalkeen waxay ka hadlayeen badbaadada dowladnimada Soomaaliya intaanan xornimada qaadanin haddaan xornimo qaadano nidaam federaal aan samaysano si nin kastoo Soomaaliya aysan cuqdad u gelin waxyaalaha burburka iyo dowlad la'aanta keenay waa cuqdadii dowladii centralismka ka abuurantay oo ahayd sidii hadda inta uu ka sheegay madaxweyne Saciid inuu baydhabo nin maxay ahayd ka yimid goboladaas kala Soomaaliyeed oo goboltoono ka noqdo oo gudoomiye ka noqdo oo taliye qayb ka noqdo dadkii deegaankii xitaa ixtiraam ah lahjadooda iyo luqadooda lagu ixtiraami waayo waxaa hadda ka hor ka dhacday degmada Xudur nin gudoomiye degmo ah yaa maxamed siyaad yimid ninkii bay ka dacwoonayeen marka reer Xudur ninkii marka waxaa hadlayay ninkii nabadoonka ahaa oo shadag yaa la yidhaahdaa qudbeynayay kiibaa marka wuxuu leeyahay war shadag af Soomaali ku hadal maxamed siyaad uu fiiriyey marka shadag nin aad u aqli badan u ahaa wuxuu yidhi madaxweyne lanku wala usu leeyahay hamiinkina afka kasoo ergeeyna ma kasoo eri maalintii markaan qudbeynaynana afka ma kasoo yiri laakiin habeenkii oo dhan waa wareegayo gabdhuhu ku shukaansana afka waa kasoo waxyaalaha dhibaatada nidaamka federaalka aan u rabnay oo la waayay ka mid ahayd nidaamka federaalka waxaan aaminsanahay maalintii xornimada la qaatay haddii taladii iyo waaye aragnimadii iyo soo jeediyeen odayaashii awowayaalka annaga ahaa oo in dalkan federaal lagu maamulo ay ahaan lahayd maanta burburka intaan la eg oo 30 sano gaaro oo dalka iyo dadka intaan ku kala maqnaadaan ma imaan lahayn caymo ma diidaa la yidhaaha maanta Soomaaliya inay meeshaan soo gaarto oo marxaladan aan gaarno oo intaan inta ka tagno waajid aan tagno oo dadka reer waajid ay golo deegaan samaystaan oo ayaga gudahooda ay iska soo xulaan oo gudoomiye ay yaqaanaan ay doortaan oo taliye saldhig ay yaqaanaan loo sameeyo oo nin kasta meeshiisa u tago oo af Soomaali ku hadal aan la dhihin guulaha federaalka uu leeyahay gaarnay ka mid sidaas darteeda yaan waxaan go'aansanay inaan ka dhabayno federaalka Soomaaliya inuu salka dhigto dadka Soomaaliyeedna aan tusno inuu federaalka uu fiican yahay uuna daawo u yahay dowladnimada Soomaaliya federaalka aan kala tagna maaha walaalnimo ma jirto maaha dowladnimo ma jirto maaha midnimada Soomaaliya muhiim u tahay laakiinse ismaamul baa la yiraahaa waxaana ku dhismaaya dalka waxaa ku dhismaaya maskaxda dadka waxaa ku dhismaaya aqoonta waxaa laga turjumayaa baahida ugu hooseysa oo taalo oo tuulada taalo oo hooyada haysato oo caruurta haysataa laga turjumayaa sidaas darteeda yaa waxaan go'aansanay marka meel kasta oo nidaam federaal uu ka jiray inaan tagno safarkii dheeraa oo Kaduna State aan u tagnay calankii uu ii dhiibayay koonfur galbeed fanaankii intaan inta ka qaaday yaa waxaan geeyay Kaduna oo Ilaahay buu dadaal ninbaa waxaa laga sheegay dadaal waxaan ka qabo dabsir baan beer ku abuuray dadaal waxaan ka qabo calankayga hataa kama tegin si Kaduna ay u bartaan ujeedada ugu badan waxaa waaye berri baan waxaan rabaa inaan sheego calanka koonfur galbeed inaan geeyay Kaduna waa Afrikada fog waaye Nigeria wadanka Afrika ugu dadka badan waaye oo ugu dhaqaalaha badan waaye waxaana wadnaa inaan meelo kale oo ka dhaadheerna aan geyno si nidaamka federaalka faham fiican looga qaato Soomaaliya oo dhan ay noogu dayato aana gaarsiino ay noqoto wax dadka Soomaaliyeed oo dhan ay jeclaadaan insha Allah taala waxaan sameynay dib u heshiisiin state-ka iyo dadka reer koonfur galbeed gudahooda ah oo keentay xasiloonidan iyo deganaantan siyaasadeed iyo midnimadan iyo walaalnimadan iyo iskaashigan maanta yimid waxay ku timid dib u heshiisiin iyo isqancin iyo israali gelin iyo isu tanaasul iyo isdhageysi aan habeen iyo maalin u soo jeednay oo waqti gelinay annagoo ka rabno dadka reer koonfur galbeed inay kalsooni buuxda ay ka helaan maamulkooda ayna ninka ugu yar iyo kan ugu weyn ay cabashadooda aan dhageysano subaxiina intaan u fariisanaa habeenkiina intaan u fariisanaa qof kasta oo reer koonfur galbeed ah meel kasta uu joogana albaabadanada waa u furan yihiin si ay ugu kalsoonaadaan systemkooda iyo dowladnimadooda dib u heshiisiintaas ballaaran yaan suubino ilaahayna waa nagu guulaysiiyey siyaasadda loo dhan yahay waxaan sameynay dhismihii golihii deegaanada ilaa iyo 6 degmaan maraynaa haddana waxaa processka noogu jira 4 degmo waxaa noo qorshaysan hadduu ilaahay yidhaaho sanadkan cusub aan bilaabayno 18 degmo waxaa la haystaa 3 degmo ka mid ah 15 degmo
inay golaha deegaanka ay wada haystaan sanad guurada afraad hadduu ilaahay yidhaaho ilaahay nabad nagu gaarsiiyo inay intaba ay golo deegaan u dhismaan. waxaa ilaahay nagu guuleeyey oo aan dhisnay si xigmad ku jirto oo raalli ahaasho ku jirto, dadka deegaankana ay ku qanacsan yihiin. aqalkii sare baarlamaanka si fiican oo qurux badan oo noogu dhammaaday. dadkii aan ka warbixinaynay oo dhallinyarada iyo dadka waaweyn iyo gabdhahaba isugu jiray aqoon-yahanada ahaa ayaa lagu guulaystay. golihii deegaankii ugu dambeeyey oon dhisnayna wuxuu ahaa kii Baraawo. nabadeynta siyaasadeed ee Soomaaliya waxaa ilaahay mahadiisa oo ilaahayna waafajiyey. annagana dad Soomaaliha nahay, haddaysan Soomaaliya madaxii weeye aysan toosin, koonfur galbeed toositaankeeda keligeed wuxuu taraayo male. waxaan priority markii koonfur galbeed laga gudbo xoogga aan saaraynay dibu dhiska iyo dibu heshiisiinta iyo midnimada iyo wadajirka iyo dowladnimada Soomaaliya. oon waqti badan gelinay, safarro badanna u galnay, oo Samareeb u tagnay, Garowe u tagnay, Kismaayo u tagnay, Xamar u tagnay, ugu noqonnay, heshiisiinay, ka shaqaynay. haddana kama caajisayno, waa u taagannahay. habeen iyo maalinna waa ka shaqaynaynaa hadduu ilaahay yidhaaho. waxqabadka koonfur galbeed ee 3 sanoon joogay wax la soo koobi kara ma aha. wixii qabsoomay ilaahay raalli ahaashiisay ku qabsoomeen. midnimada iyo wadajirka reer koonfur galbeed saqiir iyo kabiir ay ku qabsoomeen iyo raalli ahaashaha. annagana ilaahay baa na waafajiyey. inta dhimanna waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu ilaahay noo hagaajiyo. intaas kadib sidaan hadda hore u sheegay, dalka wuxuu galay doorasho. doorasho waa laga sheekeeyey, waa lagu heshiiyey, waqti badanay soo qaadatay, heshiisyo badanaan soo galnay. laakiin waxaan haynaa heshiis rasmi ah oo doorashada looga heshiiyey oo la yidhaaho 17 September, oo cid kasta oo Soomaaliya ay ku qanacsan tahay. waa qoran yahay, waa haynaa. 27 May heshiis kaloo la yidhaahaa jiraan samaynay oo habraacyadii iyo sidii loogu dhaqmi lahaa ah. wax walba oo doorashadan ku saabsan nidaamkii iyo broseskii iyo sharcigii iyo heshiiskii loogu talagalay yaan haynaa. sida aan u hayno oo heshiiska u yahaan u fulinaynaa. qofnana ma ugu darnaanayno, qofnana uguma roonaanayno. ninkii ilaahay nasiibkiisa ka dhigana waa la dooranayaa. waa run, doorasho xanuun bay leedahay, tabashay leedahay. wax dad badan oo Soomaali ay rabaan waaye. dadka Soomaaliyeedna intaan ka aqaano, qofka Soomaaliga cadaalad wuxuu u yaqaanaa markuu asaga wuxuu rabo helo. hadduu wuxuu rabo waayo, cadaalad ma jirto. cadaaladda Soomaaliya marka tii inaan ka bedelaan rabnaa. annaga waxa aan raacayno iyo mas-uuliyadda iyo waajibaadkana saaran iyo waxa aan xaqa u leenahay waa naqaanaa, jidkeedaana maraynaa. hadduu ilaahay yidhaaho doorasho ciddii dacwo qabto iyo ciddii tabasho qabto ayagana waa qancinaynaa. laakiinse dadka Soomaaliyeed iyo state kasta daruuf iyo wuxuu leeyahay iyo marxalad asaga u gooni ah. statekan wuxuu u samaysan yahay nidaamka heshiiska uu u samaysan yahay u qorayo. waxaa noo joogo odayaasha dhaqanka koonfur galbeed oon hal qof ka maqnayn oo ku jiro 135 ka mid ahaa yaa noo joogo. dad hadda kadib la raadinaya ma aha. intay noo degan yihiin ixtiraamaan ku qabnaa. doorasho kaliya ma ahee shaqooyinka koonfur galbeed oo dhan ay qayb ka yihiin. broceskii lasoo maray bay qayb ka yihiin. dadka reer koonfur galbeed iyo deegaanada kale waxaan ku kala duwannahay. nidaamkaas iyo systemkaasaa noo dhisan. wax haba yaraatee dee in la iska kaana soo maraayo oo markii wax kaloo la sheega la waayo. nin baa waxaa laga sheegay haddaan waxaa leeyahay hal bil qaday yaan ceel geeyo yiri oo biyo waraabay. inta ceelkii uu tegey baa ninkii ceelkii lagu tumay. wuxuu yidhi war maxaa leeyahay haddaan waxaa leeyahay hal bil qaday baan ceel geeyo biyo ka waraabinayay. haddaan waxa leynay doorashadii oo dhaqaaqi weysay baan dhaqaajinay. waan ugu talagalnay in la qabto waqtigeedana uu ku dhammaado. haddana waa qabanaynaa. qof kastoo Soomaaliya cabasho qabana waa qancinaynaa. laakiinse marna ma ka leexanayno wixii aan ku heshiinay. qofnana uma daynayno. qof gooni ah oo wax waayina doorasho uma joojinayno. qof gooni ah oo maxay ahayday sidii uu rabay asaga oo uu ku jiray namo uu samayn doono hadduu ilaahay yidhaaho. intaas kadib waxaan rabaa hal arrin oo muhiim ah oo madaxweyne Qorqor uu sheegay.
madaxweyne siciidna uu dembi nooga dhigay inaan fahansiiyey aan faahfaahiyey madaxweyne qorqoru 80% annagaa dembi galnay muusan dhihin madaxweynaha wuu qalday wuxuu yidhi 80% nin baa hadda kahor waxaa la yidhi ayada oo salaad la tukanayo dadka soomaalida waa sahwi badan yihiin salaadii buu galay marka waa og tahay soomaaliga waa iska wareersan tahay waxay xisaabayaan doorashadii ergadii meeqay ahayd asagoo allahu akbar markuu yidhi ataxiyaad bilaabay meeshii faatixada la akrin lahaa oo ataxiyaad akhriyey marka mid ag taagnaaba wuxuu leeyahay adoo suruntaba ataxiyaad akhriday madaada fadheeta may akhriyi doonta adoo taagan baaba ataxiyaadkii fadhiga loogu talagalay baa istaag ku akhrinaysaay markaa fadhiisata maxaa akhrin doontaa cabashadan doorashada oo waa la boobay la leeyahay ninkii xasuusan hal qof oo golaha shacabkoona soo dooran yaa waxaa la dhahaya doorashaa la boobaya xataa ma la gaariyaa waa ninkii taagnaayo oo taxiyaadka akhriyay ayadoon hal qof la dooranin yaa waxbaa la boobaya la lahaa dhaqanka soomaalida iyo lahjadda sida wax loo sheegayo sax ma aha annaga waxaan rabnaa inaan haddii wax la sheegayona si wanaagsan loo sheego laakiin luuqad ma aha waa wax muddadan dambe soo bilowday waa la bilaqaystay iyo waa la boobay iyo maxaa la boobaya doorashaa la galay doorashaan qabanay 4 qabiilaan u qabanay waanjeel baa la dooranayay aamin eelaya la soo doortay yaan ka boobnay qabiilkii iska lahaabaa la doortay hadamaa la doortay eelay baa la doortay luway baa la doortay ma dadkaas la doortay baan dadkoodii ahayn oo dad kala boobay marka boobkii micnihi aan fahmi weyne micnaha mise dadkaanaan la rabin oo dad kalea loo rabay na looma sheegin mana aysan imaanin kuwa adinka aad rabteen oo aad u malaynaysaan in wax laga boobay noomaynan imaan annaga kuwii noo yimid oo wax raadinayay oo xaqa u lahaa oo beeshoodii iyo shacabkoodii iyo ergadoodii iyo dadkoodii ay doorteen yaa la doortay lahjadda iyo sida wax loo sheegayo waa wax caqabad ku ah dhismaha iyo dowladnimada iyo horukaca iyo horumar ka socdo caqabad ku ah waayo runtii haddii afka uu barto dareen waa la guurayaa waa la boobayaa waa la diidayaa waa la kala tegayaa waa la yeelayaa dadka soomaaliyeed ma aha in argagax iyo waxaan jirin lagu shubo si aad adiga kursi u heshid darteed kursigan ilaahay baa bixiyo mar walbana waa la heli doonaa ninkuu ilaahay u qoraan helayo wanaagga aan ka wada shaqayno soomaalida aan ka shaqayno soomaalinimada wixii aan ku heshiinay aan fulino doorashadan aan qabanno arrintii aan usoo noqdo saaxiibkay lagu eedeeyey dadkii ayagoo taagnaa ataxayaadka akrinaya yaa wixii ay sheegi lahayn 80% ayadoon doorashadii la bilaabin 10kii annaga aan qabanay annaga naga sheegayaa lagu dhahay maan annaga wax xumaana sameynay maa siciid annaga wax wanaagsanaan samaynay doorasho la suubiyo annaga aan suubinay processkii rasmiga lagu heshiiyey aan marnay yaan samaynay kii aan marnay leey mar mani waxa waaye waxba lagama sheegi doonaa lagu wadaa ma ogi annaga xumaan samaynay maa dadkii ay idoo taagan ataxiyaadka akhrinayo yaa annaga kulli ataxiyaadka nagu akhriyey runtii aniga waxaan ka fikirayay marka hore dadkii soo go-aamiyey oo de waa sheegnayoo waddanka wuxuu ku jiraa marxalo adag waxaan qabay 20ka bishan oo berita ah dadkii aaminsanaa baan ku jiray inay doorashada golaha baarlamaanka ay soo gabagaboobi doonto aragtidayday ahayd ay iska culus tahay haddana ay dadban tahay dadbanaantii horoo naqaanay maahay weliba ay sii dadban tahay haddana waxaan islahayn maadaama muddo badan la sugaayay bal hore ha loo socdo ha la boobsiiyo haddii marka doorashada quruxdeeda iyo wanaaggeeda wuxuu ku jiraa in isteydyada dhan laga wada bilaabo nin kastoo doorasho laga sugaayo inuu bilaabo uuna ku bilaabo sidii lagu heshiiyey oo rasmiga ahayd oo habraacyada ku jiray lagu bilaabo haddii isteydyada dhan ay ku bilaabato ka wada bilaabato waxaan aaminsanahay doorashada waqtiga ugu dhoway ku dhammaanaysaa si loo helo dib u dhiskii iyo dowladnimadii muddada dheer soo socotay inaan laga caajisin marka waxaan ka mahad celinayaa oon u hambalyeynaynaa dadkii doorashada bilaabay iyo ciddii hadda dhimanna waxaan ka rajaynaynaa inay bilowdo
laakiin insha allahu tacaala inta waxaan uga kala tegi doonaa inaan annaga dhan doorashadii aan wada bilowno lugtana aan furno. lugta fur iyo maqli jira, lugtana la wada fur haddii ilaaha yidhaah. madaxweyne qoorqoor waa mahadsan tahay, sidii quruxda badnayd oo saaxiibtinimada annada iyo xiriirka dhow ee koonfur galbeed iyo galmudug aada ka soo sheekaysay xaqiiqatan waa wax jiro, waa ku mahadsan tahay. madaxweyne siciid sidaasoo kale wax la sheegi kara ma aha. taariikhda dheereyd ee puntland shacabkeeda iyo reer koonfur galbeed ay lahaayeen waxyaalaha aanan iloobi karin. ma rabo inaan caawa inta ka sheego xiriirkii fiicnaa oo nidaamka federaalka markii aan ku daalnay oo saan u sheegaynay dadka sheegaya dhan ay dhinteen oo qofka uu ka nool yahay, kuwii ka noolaa yay naga soo gaareenay qabteen. taasaan uga mahad celinaynaa. oo kuwii ugu dambeeyey oo tacbaan oo ayagan inay dhintaan rabaan odayaashii soo haray ibraahim boolis iyo zobe iyo markii ay qaatumo marayaan odayaashii oo dhan, qaarna hadda ay nool yihiin. xaamid ay qofka markuu dhimanayo hoos usii hadlaa moogtay federaal ay leeyihin. inaad nala qabateen soomaali ay diiday. waa ogtihiin maalintii systemkan uu burburay annaga waxaan samaynay maamul xasayna la yidhaahaa madaxweyne looga dhigay. qoorqooraa noo yimid waa naga kala dira. waa soo kabsannay koorso dheer iyo tababar dheer kadib waa soo noqonnay, waa nimid mid kalaan samaynay. koonfur galbeeddaa la sheegayo maalinkaasaan samaynay. waa naloo kaba gashtay. waxaa la yidhi kuwii hadda waa isku yara toosan yihiin, tababar fiicanna waa qabaan, xoogo hub ahna waa haystaan, fahamkoodana waa soo ficnaaday. haddana waa nagala daba qaatay, annagibaa madax la isukaana geliyey. maanan harin. ilaahay mahaddiis hadday noo samaysantay. waxaan ilaahay ka rajaynayaa federaal dadka soomaaliyeed oo dhan wada anfaco in la samaysto. aad iyo aadan inkaga mahad celinaya madaxda inta joogto uu uga horeeyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble. insha allahu tacaala waxaan ballan qaadayaa dadka soomaaliyeed oo dhan oo ambishin kale ama madaxweyne ha rabo ama xildhibaan ha rabo ama xil siyaasadeed ha rabo ama musharax ha ahaado ama xildhibaan koonfur galbeed ha ka rabo inaan meel kastuu joogo la fariisano, aan weydiino tabashadiisa, aanan qancino. laakiin qanaacadda ay noqoto waxaanan ku heshiinay jidkii aan maraynaa, rabitaankaada ma marayno. haddii aan wax qaladnay noo sheeg waa toosinaynaayo. wax allaali waxay qaldanna aan toosino. si midnimo oo wada jir ahna aan doorashada usoo gabagabayno sidii aan sheegayna lugta aan furno. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.